la socda awday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 باقن وبرشدا dadweynaha باقن waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland waa barnaamij xiiso badan oo ku tartami doona dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن داوديال كسر دوّد برنامج حساب بدنا ترتك على بورك تكنولوجيا ده سنة كلابود كونيو كوي لباتن ترتكن أمر يمل أدو حساب بدنا استمر كاسنا وقت جل جاري وقت كي لوجد بلها ورجي صدحات أو ماشي وجه حساسن كو كلاب بحدونان لليرتها على بورك كسر كلاب بحي استمر كاسنا كسر كلاب جوليستي جروبي دي كلا دونا قيبي هور برنامج كا waxaa barnaamijkan qaybta saddexaad ama wajiga saddexaad lagu soo bandhigi doonaa si itus oo itaabsi ah in loo soo bandhigo waxyaabihii ay sameeyeen isla markaasina ay hal-abuureen aqoonyahanka kala duwan ee ka qayb qaadanaya barnaamijka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland bani aadam kuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye balantenua boqolkiiba boqol buga iyo qalin lagu baratamaa sida caadada ahayd waxaan gudageli doonaa barnaamijkeeni tiknoolajiyadda hal-abuurka tiknoolajiyadda waxaan u yeeri doonaa xubnihii guddida kala duwaneed ee barnaamijka qaybta muhiimka ka ahaa waxaan ugu horreysiin doonaa Professor Mubarak Ibrahim Aar oo ah gudoomiyaha guddiga isla markaasna isku dubarida barnaamijka waxa kale oo u yeeri doonaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale waxaan sida jecelahay inaan yeero injineer Farxaan Haarun waxa kale oo ku soo dhaweynaya xubnaha guddiga ee madashan kala saari doonta bulshada ardayda tartamaysa injineer Cabdirashiid Maxamed ugu dambeyntii waxaan u yeeri doonaa xubinta ugu dambeysay guddida halkan caawa martidan waa barnaamijkan qaybta nagala qaadanaysa Dr. Cabdirashiid Maxamed haatanna ku soo dhawaada CV-ga guddida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubarak Ibrahim Aar Mubarak Ibrahim Aar waa gudoomiyaha guddida kala saarista tartamayaasha waana soo saaraha barnaamijka sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Badar waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada masters ku qaatay software engineering taas oo ka qaatay dalka Ingiriiska Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee bixiya adeegga tiknoolajiyadda waa kuma Farxaan Aadan Haarun waxa uu shahaadada masters ku haystaa cilmiga computer science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska waxa uu muddo dheer la soo shaqaynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group
waa kuma Dr. Caydaruus Maxamed Ibraahim. Dr. Caydaruus Maxamed Ibraahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da waana agaasimaha machadka IT-da ee Almi Academy oo ku yaala magaalada Hargeysa. waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa la taliye dhinaca IT-da. waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi. Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada masters ku qaatay culuumta maamulka. waa aasaasaha iyo mulkiilaha sharikada Hasi Consulting Firm ka shaqeysa tababarka cilmiga hogaaminta maamulka iyo samaynta istaraatiijiyadaha. Cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI. waxa uu maraya barnaamijku meeshii ugu xisaab badneed waxaan u yeedhi doonaa kooxda labaad ee Blood Bank waxaan jeclaan halkan ku soo dhawaadaan kadibna ay bulshada la wadaagaan. waxaad haysataan muddo 10 daqiiqo videogaaga inaad ku soo bandhigto isla markaasina sidoo kale practicalka aad ku samayso waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. magacaygu waa Faadis Cabdilaahi. groupkayga waxa weeye Blood Bank oo mobile application oo lagu kaydiyo dhiiga. marka qaybtana waa volunteer waa dadka hadhow doonay in dhiig shubaan oo u diyaar yihiin in dhiig shubaan ayaa qaybta lagu diiwaangelinayaa. qaybna waa donorska waa dadkii bixiyay, qaybna waa volunteer dadka hadhow ku deeqay dhiiga aan wali shubid. marka qaybtaas volunteerka waxa uu talagalay in ay dadka halka ay ka arkaan dadkii doonay in ay hadhow ku deeqaan dhiiga oo meel lagu diiwaangeliyay ay leeyihiin. sidoo kale xaggaas la search buu leeyahay mid walba uu shaqeynaya oo soo tabaad ugu shaqeynaya. hadii aan oo ku qodho wixii oo inoo soo dhigaya marka qaybtaasina waxa weeyaan waa qaybtii volunteerka. qaybtaasina blood rar waxa weeyaan waa qaybtaan lagu diiwaangeliyay dhiigaga naadirka ah oo in maanta oo dhan meel ku wada diiwaangeliyo dadka dhiigagooda iyo waxaas oo dhan meel ku wada diiwaangeliyo dhib bay leedahay. marka waxaan u sameynay qayb u gaar ah dhiigaga naadirka ah in meel sax ah lagu diiwaangeliyo dadkana arki karaan oo ayagana oo kuwaas dadkii ayagana oo ah dhiigooda naadirka yahay. haddii halka ka baxnaasana qaybtan waxay noo soo diraya message-kan waxay noo soo diraya dadka dibadda jooga oo dhakhtarka u soo diraya wuxuu oranayaa waxaan u baahanahay dhiiggaas u baahanahay wuxuu u baahanahay inaan dhiig shubaa doonaya waa message uu dirayo dadka dhakhaatiirta ama dhakhtarka weyn. marka qaybtan waxa geli kara dhakhtarka baa geli kara awood u leh in ay galaan dadka ma geli karaan oo username iyo password ku haysta dhakhaatiirta ba haysta clear. haddii ay ku qodho inka tusaale kale mother@gmail.com aan galo aan qodho xagada waxay qornaa passwordka mother 123. haddii login gano haddii loo gidhaano armiku qaybta buu leeyahay oo wuxuu ku dari karaa awood u leeyahay add donors inuu ku daro muxuu ahaa add donors dadka dhiiga bixinaya inuu ku daro dhakhtarku inuu ku daro add volunteer dadka dhiig ku deeqaya inuu ku daro dadka dhiiga naadirka ah meel lagu diiwaangeliyo. iminka tusaale kale haddii aan donorska ku qorno qaybtan waa donorska ayaa lagu diiwaangelaya magaciisa waxaas oo dhan baa la gelaya magaciisa oo xagga sare ah. qaybtan wuxuu arki karaa saddexdii waa donorskii iyo volunteerkii iyo blood rarkii. qaybta wuxuu arki karaa message-kii oo dadkii inoo soo diray message-ka ayuu arkayaa. wuxuu arki karaa dhakhtarku inuu fiyo donorskii dadkii dhiigi bixiyay meeshii lagu diiwaangeliyay meeshay galeen inuu arki karo oo hadduu dhilid u baahan yahay iyo haddii uu lambarkiisa qaldamo ama dhiigiisu qaldamo meeshii aan ku admit gareyn lahayn way qaybtaasina oo ah donorska. qaybtana waa volunteerkii oo ah qaybtii uu dhiig ku deeqay. few blood rar oo ah inuu arko qaybta dhiiga naadirka ah dhakhtarka awood u leeyahay inuu arko. haddii uu doonayo inuu ka dhiligareeyna si automatic ugu dhiligareyn karaa. sidoo kale haddii aad ku dhufto kaasoo kale iminka xamsa doonina xamsa axmed dhiigiisa nooc yahay haddii uu update yahay wuxuu odhanayaa baashaas ku dhufanaya oo wuxuu noo saaraya taashadaas oo wuxuu noo soo baxayaa magaciisa dhammaystiran wixii dhan buu ku qorayaa. haddii doonayo inuu dhiligareeyna wuxuu taabanayaa photocopy waa calaamada yar waxa weeyaan waa delete. haddii aan delete siino wuxuu odhanayaa message ka soo baxaya ma dhiligareena qofkan. haddii ayaas tiraado uu ka baxaya haddii aan noo dhahnana weli uu joogaya haddii wax noo dhahno waa siisi haddii laakiin delete aan siino si automatic u baxaya halkaas ka arkaysa inuu ka baxay marka si automatic. marka intaas warta ku kooban yahay
project-kayga dhammaystiran haddii uu username iyo password ku cusub ku doonayo ku darsanaa halkan buu ku darsanaya oo add new users in usero cusub ku darsado. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Groupka ka hadlayay Blood Bank application Blood Bank markii ay soo jeedeen presentation-kii aan eegay waxaa noo soo baxaya barnaamijkan amba application-kani ma yahay application ku habboon amba uu ka faa'iideysan karo Blood Bank-kii isbitaalku amba wasaaraddu ها uu ka faa'iideysan karaa barnaamij aad u fiican oo waxa weeyaan hufan ayuu ahaa horena uma aanan lahayn application mobile application programkan oo kale ah oo dadka dibadda ay arki karaan amba iska soo diiwaangelin karaan barnaamijka ma aanan lahayn marka waxaad moodaa in uu caawin karo shaqadii Blood Bank-ka isla markaana fududeyn karo hawlihii loo baahnaa oo dadka u baahan dhiig ay si fudud isku soo diiwaangelin karaan amba si fudud message loogu diri karo barnaamijkaasi runtii wuxuu wax weyn ka bedeli karaa baahida loo qabo dhiig oo wuxuu kor u qaadayaa numberkii donoriska ahaa ee dhiigga shubayay in si fudud lagu helo waayo inta badan waxaan isticmaali jirnay telephone oo wax weeyaan family replacement wax la yiraahdo isticmaalnaayo dadka iyaga u yeedha goobta markay yimaadaan kabacdina dadku eheladooda iyaga telephone kula hadla amba goobta ay joogaan ayaa bay runtii ugu tagi jireen sidoo kale anagu markaan u baahano telefoonkaas aan isticmaali jirnay marka programkani amba application-kani wuxuu sahlayaa in si fudud marka qofku soo goobtiisa gurigiisa dhex jooga inuu diyaariyo oo uu halka amba isbitaalka kala xiriiro oo uu sheegto baahidii jirtay amba si toos ah uu la hadlo dadkii dhiig bixinayay oo waxaan ku arkaynay dadkii donoriska ahaa amba dadkii volunteer-ka ahaa dhiig bixinayay in maxay tahay lala hadli karo amba fariin loo diri karo marka taasi waxay sahlaysaa in si fudud dhiigii marka uu loo helo oo dadkii u baahnaa ay helaan sidaan sheegay markaa hore programku ma aan isticmaali jirin marka waxyaabahan ku daray waxaa ka mid ah isagoo database amba web inay dhalinyartu ku kordhiyaan oo si shaqadii markaa looga control karo oo waxa weeyaan dadka isbitaalka ka shaqeynaya inta badan anagu mobilka maadaama aan gloves iyo isticmaalino aan shaqo noocaas ku jirno inta badan nooma fududa inaanu at the same time ka shaqada lagu jiro in mobile isticmaalo laakiin computerka desktopka marka la galo database-kii shaqadii iyo nidaamyadeedii iyo wixii ay leeyihiin halkaas fariimaha amba laga karaa amba laga diri karaa marka taa kumaan arkin baan filayaa programka marka inay taasi ka dhiman tahay bay muuqatay laakiin sida kale runtii barnaamij aad u fiican oo dhalinyaro aad moodid inay hayaan xogta Blood Bank amba blood safety soo shaqeeyo ay hayeen barnaamijkaasi guud ahaan waa barnaamij anfici kara Blood Bank lagana faa'iideysan karo waqti xaadirkan aad baan ugu baahannahay barnaamijka tartanka hal-abuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday islamarkaasina barnaamijkan wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Somaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaa ku xigi doona qaybtii practical-ka ahayd inay sameeyaan oo systemku sidoo shaqeynaya in yarna tuso kadibna su'aalahan weydiin doonaa saad u aragteen waxaad daawateen gudoomiyihii bankiga dhiiga wuxuu ii sharaxay baahida jirta wadda ka jirta iyo baahida ka jirta Blood Bank wuxuu ii taabtay oo idin sheegay in waqti xaadirkan uu hadda u baahan yahay systemkan bulshada u baahan tahay dadka ayaguna u baahan yahay wasaaradda ahaan iyo cisbitaal ahaan u baahan yihiin waana ka dharagsan tihiin hal baytibaan qoranay oo ah oo committee ah oo yiri application-kiina waxa ku soo dartaan qaybooba waan u sheegnay waxa ku yiri hadda waxaan ku wadnaa luqadda la yiraahdo Flutter Flutterku wuxuu sahlayaa in Android-ka iyo iOS-ka iyo desktop waliba web inuu intaba uu lagu isticmaali karo marka ayada taa shaqadii waa wadnaa waana ku tala jirnaa insha Allah inaan waqtiga ku soo gudbino iyo waqtiga wasaaradda iyo gudoomiyaha bankiga ayaan kala xidhno doona insha Allah iyo waqtiga ku dhameysano project kale oo ah qaybta Flutterka hadda waxa ku diyaarinay Android Studio marka wax cusub kuma soo dirin application-kayga
waayo runtii waxaa ku diyaarinaa luuqadda Flutter-ka ah oo hadda ayada aan wadno gacanta ku hayno weliba webkii aan laga codsaday iyo weliba guddidii habeenka dhaweyd su'aalaha aan kala dhex baxnaa ka mid ahay inaan insha Allah aan qoranay notice-kii raa oo u baahnayn inaan xadidno oo tusaale oo kale qofka lambarska inaan uu qofku u diri karo ama codsan karo request uu siisan karo deetana notification soo dhici karo oo boydka qoranay xal ee habeenka dhaweyd tartamayaashi oo ah guddidaan ka note-ka qoranay iyo taa webka insha Allah ku dar doono haddana waxaan u diyaar garoobay insha Allah wixii su'aal oo maadaama aan videogana aan u sharaxaynay application-ka waxaan u sharaxaynay gudoomiyaha bangiga si u shaqeynay waxa soo dhan anaga waqtiga aan soo koobay insha Allah videogana waa arkayseen su'aalahana oo gudbi doona insha Allah Abdullaahi Blood Bank oo runtii iyaguna soo bandhigay barnaamij aad u qiimo badan oo ahaa in dhiigga lagu kaydiyo nidaam online waxaan markaa ka bilaabi doonaa qiimeyntii koobaad inoo sameeyaan dhexda injineer Cabdirashiid Maxamed ayaan weydiin doonaa bal Blood Bank qiimeynta waxa uu siiyay ama dhibcaha uu siiyay groupka Blood Bank waxaan siiyay 65 waa tahay Cabdirashiid aad buu mahadsanyahay waxa kale jecel injineer Farxaan Haruun inaan weydiiyo qiimeynta uu sameeyay ama dhibcaha uu ugu talagalay inuu siiyo kooxda Blood Bank qolada Blood Bank waxaan siiyay 55 Cabdiramaan Cali Xirsi ayaan jecelaysnay inaan mar kale weydiiyo Blood Bank iyo qaybtii horeysay qiimeyntii horeysay dhibcaha ugu talagalay Blood Bank mobile application qiimeynta koowaad waxaan siiyay 50 aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan ugu dambeyn waxaan jecelahay kooxda Blood Bank inaan u weydiiyo bal codkiisa ama qiimeynta uu horeeyay uu sameeyay Dr. Aydruus groupka Blood Bank waxaan siiyay 50 waa tahay aad baad u mahadsantihiin weli daawadeelino ku guda jira barnaamijka tiknoolajiyadda halaburka tiknoolajiyadda waxaan jecelahay intaana qiimeynta tooskaa gelin in haddana mar kale su-aalihii guddida iyo aan u kala baxo kooxda Blood Bank waan jecelahay in idinku wareejiyo waayahay haddaan bilaabo su'aalaha guddi ahaan waxyaabaha noo muhiimka ah waxa ka mid ah in barnaamijkan aad samayseen uu ciddii loo sameynayay siday idiin qaabisho iyo siday u aragto inuu baahidoodii ka jawaabi karo marka kulankiinii dhakhtarka maanta waxa ka muuqatay inay barnaamijkiinii soo dhoweeyeen una arkaan wax ay ku shaqayn karaan faa'iidana ku gaari karaan marka waxaan mar labaad ku celin lahaa waxyaabaha la idiin soo jeediyo ee ma garanaysaa recommendationka sidaad idinkuba sheegteen inaad qaadataan oo ay muhiim yihiin weliba waxaan ku celin lahaa suggestionkii ahaa in dhaatadu aanay bannaanka oolin marka horeba aanad macluumaad badan aanad arkin ee tusaale ahaan oo kale dhiigag oo kale dhiigga noociisa drop down nooca markaad doorato uu qofka macluumaad yar uu ku tuso laakiin aad dalban karto qofkaas inaad maxaa dhahday inaad dhiigga u baahan tahay oo somehow applicationku isagoo ka faa'iideysanaya Google notifications qofka notification u diro haddii qofku ogol yahayna uu ogolaado in telefoonkiisa la arko sidee baad u aragtaan marka changeska annaguna qaarkood idin soo jeedinay qaarkoodna dhakhtarku idin soo jeediyeen inaad ugu dari kartaan barnaamijkeena muddo intee leeg baad ugu dari kartaan baad isleedihiin hadda waxa wadda si aan hore u sheegnay presentation markay soo jeedinay luqadda Flutter-ka ku diyaarinaa waana hadda gacanta waa ku haynaa waana waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad noo soo jeediyeen guddida iyo gudoomiyaha waliba bangiga oo isbitaalka Hargeysa Cabdifatax waan qoranay waana noodgarsanay maskaxda waa ku haynaa habeenka dhaweydna waa ku celisay waana noo noodgarsantay hore u sheegnay insha Allah waxaan rajaynaynaa in bisha soo socota insha Allah inaan ku dhameystirno oo aan isbitaalka ku wareejino haddii Ilaahay idmo waana diyaar baan u nahay insha Allah inaan replication-kaas oo dhan inaan ka gudbino insha Allah runtii waxa aad u muhiim ah inaad garanaysaan waxyaabaha u baahan tihiin Flutter waxa la yiraahdaa code once use everywhere hal mar code garee meel walbana ku isticmaal marka Flutter lagu dhiso application waxa lagu shubi karaa mobile Android iyo iOS wuxuu noqon karaa web
wuxuu noqon karaa desktop marka inaad fahamsan tihiin meeshaad u socotaan waa wax muhiima waxyaabaha runtii aan jeclaan lahaa inaan as a recommendation aad systemka ku dartaan waxaa ka mid ah haddii familigu dadkii isku family yihi ay si gaar ah yani isula socon karayaan abkiina iyagoo isticmaalaya waan odhan karo familigaygii imise qof baa a plus imise o plus mid waan qabaayo in daatadu aanay iska wada muuqan oo qofka telefoonkiisii meeshuu degan yahay yani yaraa riski baa halka ku yar jira marka daatadu inaanay muuqan qofkan magaca koobaad oo kala tus waa a plus xaafaddaasuu degan yahay laakiin in la codsado oo qofkaasi ilaa uu ku aqbalo aan la garaaci karin haddii kale calls magaaladu way is wada garaacaysaa waxaa laga yaabaa systemkeena inay ku noqoto caqabad haddaad ku dari kartaan in app call oo yacni qofka aan laga garaacin numberkiisii caadiga ahaa ee shirkadaha laakiin through the internet laga garaaco in app call ama chatting waayo kuwaasoo dhammi qofkii lacag ma charge garaynayaan laakiin haddaad SMS oo kale ka dhigtaan ama call caadiya ka dhigtaan waxaa laga yaabaa qofkana lacag baa ka baxasa taasina waa recommendation kale sidoo kale WhatsAppka maadaama imika cid waliba WhatsApp ay ku jirto in markan uu soo baxan liiskii dadku in la odhan karo through WhatsApp kula xidhiidh haddii qofku aqbalo taa qudheeduna waa muhiim runtii waxaan aaminsanahay maadaama aad Flutter maskaxda ku haysaan inaad dabooli doontaan baahida ah mobile desktop web laakiin there's a long way shaqa idin sugaysa waxaana rajaynayaa inaad ka midho dhalin doontaan insha allah alright anigu waxaan kolay su-aal ilmahay laakiin comment ban hayaa anigoo faalladii ay dhiibteen cabdirashiid iyo farxaan sii daba jooga any application mar kastoo la dhisayo first stage up to last stage wuxuu noqonayaa production stage soo maha iminka abkiinu weli production stage ka mugaadhin yani muu gaadhin halkii ugu dambeysay productka yani qofkii isticmaalayay lagu wareejinayay soo maha dhowr habeen waad naga maqneedeenoo de waxaan filaya 2 habeen 3 habeen meelahaas aad funaya intii aynaan saray soo maha ilaa 2 habeen Flutter ma bilowdeen mise maydaan bilaabin waa bilownay installationkiisii annagoo ku isticmaala laba lagu isticmaalaa waxa la Visual Code oo waxa isticmaashaa visualka marna waxa lagu isticmaalaa Android Studio annagu maadaama Android Studio fahmino waxaan u dhisnay Android-ka oo ah inaan failure ba Flutter lagu dhex dhigaa kiina waa ku shubanay waana bilownay waana ku tala jirnay insha Allah inaan soo gabagabino insha Allah haddii la idmo qorshaana ugu jirto waa bilaw deadline ba maskaxda ku qabsanaysaa goorma isleedihiin when goorma cisbitaalkan ayaan ka wada hadlay waqtiga ugu gudbinaa ayaga projectka insha Allah waxaan doonaynaa intaan macal ololaha maalinta dhiiga adduunka aan la qaadin inaan bil ka sii horeysiino insha Allah oo maalinta ololaha maalinta dhiiga adduunka inuu projectkeegu uu hirgalo anagana kaabi ka qayb qaadna insha Allah si uu u hirgeli lahaa waana ku tali jirnaa insha Allah ma isleedihiin shaqada aad iminka aad soo present gareyseen ama systemkan aad isleedihiin waa soo present gareyseen inuu 80% diyaar yahay yani diyaar ma yahay ma iibsami karaa haddaan isku dayno haa iminka haddaan iminka sidan aan ku laaj karayno oon abka ku ridno inaan OS ku shubno mooyo ka dhigno mobilkaasi baahi kale u qabo mooyaane Android-ka iminka waa u dhamaystiran yahay 70%. Okay, kooxda Bloodbank mobile app mar labaad aan idin fogaadinayaa balyo inaad u soo gudubteen roonkii labaad ama doorkii labaad ee tartanka guul insha Allah waa idin rajaynayaa waana idin dhiirigelinayaa mid waa iga talo xagga teamka laga hadlayay contactska si aanay habeenkii horena waa sheegay buuq u noqon qof walba aan isaga soo gargaraacin in access loo siiyo meelaha Bloodbank yani dadka gacanta ku haya ee hospitaalada inay contactska arki karaan laakiin aan awood loo siinin dadka caadiga ah ee publicu inay dadka contactskooda arki karaan waayo anoo magaciis ka fadhiyaan anoo iskaga wadwada mararka qaarkood ay ku dhacaysaa qof baan la hadli karaa aanun xataa u jeedin laakiin marka accesska loo siiyo kaliya
qoladan maaragtay gacanta ku haysa kaydka dhiigga way fududaanaysaa in qofkii reliability-na maaragtay iyo isku halayntina way suurtagelaysaa barnaamijkiina markaa ma noqonayo mid fawdo abuura oo dadkii maaragtay dhibaato ku soo kordhiya waa talo qodobka aan weydiinaya waxa weeye barnaamijkan culays intee leeg buu ku soo kordhinayaa cusbitaaladii iyo ciddii ka shaqaynaysay yacni operation intee leeg ayuu soo kordhinayaa si loo fuliyo yaa ka shaqaynaya imise qof buu u baahan yahay ma qalab buu u baahan yahay hadduu qalab u baahan yahay qalab noocee buu u baahan yahay muxuu ku kacayaa bal noo sawira waxanay siduu suurtagal u noqo haddii aan isku dayo su-aashaas waxa weeyaan horta culays kuma keenayo waayo annagay noo taallaa dhakhtarka inaan ka wada hadalno oo aan haddii ay oo wasaaradda caafimaadku oo shaqo nagu siinaysana annagu aan ka shaqayno haddii oo leeyihiin qof oo IT joogo baratika noo tababar ahana insha allahna waa option kale muxuu qalab u baahan yahay horta desktop waa soo gudoomiyuu ku dhawaajiyay desktop uu yaala oo haystaa wax agabo culays oo dhakhtar ku keenaya cisbitaalada ma jiraan oo desktop ay haystaan wax agabo dhana qof walba de mobile smartphone uu haystaa iyo internet wax saa u si weyn oo culays oo ku keeni kara dhibaato dadka iyo dhakhaatiirtana ma jiro oo mobilkaaga iyo desktopka cisbitaalkana way haystaan qalabkaas oo dhan marka xagga userska marka la eego dadka caadiga banaanka ka soo galayaan sidee bay cusbitaalka weyn iyo cusbitaalada yaryar iyo meelaha MCH-yada iyo kuwa private-kii sidee qaab noocee bay u wada shaqaynayaan yaa awoodda siinaya yaa maaragtay kala xadidaya mar walba caafimaadka wasaaradda walba waxay qaabilsan tahay iminka caafimaadka oo dhammaan caafimaadka Soomaaliland oo dhan buu qaabilsan yahay marka wasaaradda caafimaadku waxaa soo hoosgalaya cusbitaalka weyn waxay soo hoosgalaysa qaybta dhiig oo bloodborne oo gudoomiyina aad maqlayseen hadalkiisa iyo maqnaanka hadal iyo codkiisa waa inuu soo gudbiyay waxaan mar walba scope leedahay scope-kayga guud marka horeba ahaa public cusbitaalka oo dhammaan ummaddu kaasaa ka dhaxeeya ka private-ka waxa laga yaabaa in dhiigga u keysan uu noqdo iyana operation ku geli karayo laba baag la saddex baag ugu jiraan talaagada laakiin kan waxa laga yaabaa in 20 baag la shubay oo public loo shubay ee talaagada ku jirkeysan yihiin waxaan markaa scope-kayga si guud uga dhigaynaa ay magaranaysaa general assistant dhakhtarka weyn isaga amarada bixidaya isaga application-ka wixii advantage ba magaranaysaa koobi karaya ilaalin karaya iskuulkiisa annaguna waxaan isku dayaynaa inaan wixii access ama ka shaqeynaa ama magaranaysaa ilaalin ama hagaajin ama maintainta inaan la shaqeyno dhakhtarka weyn insha Allah su-aasheeda ugu dambaysa application-kani ma midaad ku dhaafaysaan tartankuunba mise waa midaad rabtaan xataa haddii wasaaradda caafimaadku idinka qaadato oo uu hirgalo in wasaaradaha caafimaadka ee tusaale ahaan Ethiopia, Djibouti, Kenya kuwa kale nala jaarka iyaga laftooda inaad ka iibin kartaan oo ay suurtagal tahay inaad maartay u gudbin kartaan mise waa hal mar waa maxaa la yiraahdaa shaqo hal mar la qabtay waa run horta anigu wadankayga oo dhalanay waa Soomaaliland weeyaan intaan wadamada jaarka horta la tagin ba wadankayga doonaysan ugu hirgelin lahayn project-ka oo isticmaal lahaayeen dadka reer Soomaaliland kaatana awoodda saarna wadamada jaarkana danteeda ma aha waayo waddankaygii dadkaygii familygayga degan marka insha Allahna waxaan xoog saarnaa waddankayga insha Allah inaan ayagu asaga wax soo baranay intaas ku soo leekaanay meel loo maan bixin Hargeysa marka insha Allah waxa ugu talagalay insha Allah inaan waddankaygaan way hal su'aal qorigiina ma hal xabba ku jirta mise xabada badan baa ku jira ma hal system baad wadataan oo aad u fail garoobana shaqooyin kale oo baad iska doonan doontaan mise you have many systems oo haddii kan idinka fail garoobo waxaad haystaan qaar kale oo aad meelo kale ka iibin doontaan waan hay inta ku tala jirnaa software kalena waan imagranaysaa balayn garayna oo ku jiro sporti iminka wasaaraddan sportigu u baahan tahay app loo sameeyo play score oo si level looga arkay garanaysaa ama dhaatadii ka laftigiisa aan ku door jirnaa
oo option 2 gaanu ka dhigana mar walba waxa fiican nolosha laba option leedahay option ladu ka feergalo inaad kala baad ku badbaadi kartid marka insha Allah waxaan isleenahay 3-4 xabadood ku jira garaynta qorigiin xabada aan ku sirfay feergaroonka hadhowto waxaan fikrad baan doonayaa daba socota su'aasha Cabdiraxmaan idin weydiiyay oo ah systemkiinu muxuu u baahan yahay si uu u taabagalo marka waxaad sheegtay inaanu qalab badan u baahnayn oo qofkuna mobilkiisu ka isticmaalaya dhakhtarkii markaad soo booqateenna waxaad arkayseen isagoo desktop computers ay yaalaan internetkuna dee badanaa mobilkana wuu ku jiraa oo maxaan leedahay waa laga geli karaa iyaguna way haystaan laakiin waxaa jirta component kale oo ah dee data badan baa systemkii soo galaysa marka meel buu ku hoos garaysnaanayaan maalintii hore waxaad ka dhawaajiseen in spaceka imika aad haystaan uu yahay space yaroo kooban maadaama idinku sii maalgeliseen oo ma garanaysaa aad sii iibsateen marka dee kolley baahidu way inkastoonay saa usii badnayn laakiin haddana qalab iyo kharashba baahi way jirtaa yaanu idiin dhuumanin waa ku tala jirna insha Allah waa Firebase waliba oo hadda waa 1 GB ayaa weeyaan spacekiisa oo free ah marka insha Allah waxa tukubaada kaliya taa ku dhaaqayno waxa weeyaan saan spaceka u kordhisana database-ka Google-na ka wada hadalnahayn iyo waliba Play Store-ka $5 weeyaan ayaa lagu furaa akoonka kaasna anaga iska furi karnaa iska dhalinyaranahay insha Allah waa wasaaradana waa kala xidhi doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo يا دكتور كويب إن شاء الله. waa tahay daawadayaal waxaan filayaa in ay aad idii xiiso geliyeen barnaamijyada iyo halabuurka ay la yimaadeen dhalinyartaasi oo isku hawlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen barnaamijka xiisaha badan ay iska kaashadeen wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda iyo sidoo kale bangiga caalamiga ee Premier Bank iyadoo barnaamijka qayb ka hayeen xubnaha aqoon-yahanka gudida ee madasha fadhiya oo gudoominaya isla markaasina hormuudka ka yahay Professor Mubarak Ibrahim Aar waxa kale oo mahadnaqay xubnaha golaha gudiga ee madasha fadhiya barnaamijka kale xiisabado kan la mid ah ka hor inta ku kulma dhamaantii waxaan ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye